السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada dhamaantiin saaxiibayaal meel walba joogtiin waa ku mahadsantiin sidaad nagula socoteen barteena YouTube Somali Online Opportunities iyo sidoo kale barteena Telegram. waxaan rabaa inaan halkan maanta kula share garay waxa la yiraahdo laba qodob oo kala ah. last week falanqayntii aan soo galnay iyo sida isku bedeshay sida wax u dhaceen dhowrkii tareedaan soo dirnay inaan ayaan isla fiirino iyo qodobka labaad oo ah sida maxaa la yiraahdaa newska beriyo kala jira sida employment change iyo NFP-ga oo Mareykan looga yaqaan asagana sida maxaa la yiraahdaa aad ugu tareed gareyn lahayd oo newska waxa ognahay laba option ayaa loogu tareed gareeyaa si headline oo degdeg oo markaas aad maxaa la yiraahdaa aad bibis ku qabatid aad uga tagtid iyo si maxaa la yiraahdaa bilo iyo weekly iyo maxaa la yiraahdaa oo la socod marka weekly iyo haddaan dhahno iyo kii sheeg xog guud baan la soconaynaa. sheekadu waa dheeraanaysaa, videoyaal badan bay noqonaysaa, course gaarkiisa watay noqonaysaa. marka insha Allah asagana waqtigiisa aan tegaynaa, waqtigiisa ayaan soo diyaarinaynaa maadaama hadda aan falanqaynta suuqa iyo waxaas aan soo gudbinay. dadka labada wax isku wada kaan marka hore technical inaad xoog saartid kadib ayaad maxaa la yiraahdaa fundamentalkan xoog saari kartaa. marka adoo oo awood saarin maxaa la yiraahdaa technicalkana ma saari kartid. haddii aynu ku sii socono last week waxaa ogtiin in yar waxaa idinka codsanayaa inaad horta barteena YouTube subscribe dhahdin. maxaa la meeshaan wax badan oo muhiim ah laakiin dad badan agtooda aan muhiimka ahayn ayaan soo dhignaa mar walba. dadka intooda badan horta waa ku mahadsantiin fariimihiina dadka maxaa la yiraahdaa wax ka faa'iido oo arkaa waa sababta aan mar walba hadda ugu dhiiriday inaan halkan wax soo dhigo maadaama ay dad qurux badan oo feedback ku dhacayo wax badan baan ka faa'iiday waxaan si fiican bay anfaceen. just muhiimadu intaas ay ahayd inaan maxaa la yiraahdaa aan meeshaan saaxiib aan ku noqono oo maxaa la yiraahdaa aan isku share gareyno wax walba oo forex ku saabsan. haddii aynu marka kusii socono last week waxaan soo gelinay waxa la yiraahdo barteena Telegram dhowr tareed baa soo gelinay waa kana Telegramkan Somali Online Opportunities. dhowrkan tareed iyo falanqaynta aan soo gelinay last week KGBY JBB CHF iyo JBB USD iyo USD iyo DXY. marka I think inaan sidii aan rabnay wax u dhaceen waa tara maxaa la yiraahdaa DXY halkan markii meelahan marisay ayaan markii bartan inoo timaado ayaan tradekan inoo active noqonaya. haddii aynu bartaan Telegram ku noqono ilaa haduu ku idmaayo waa kana waa ujeedaa waxaan halkan markay imaato ayaan maxaa la yiraahdaa 5 minute break raadinaynaa. halkan markay imaato ayaan fursadeena qalqaalsanaynaa ayaan iri sidii aan filaynay ayaana dhacday oo waxa ujeedaa waa tara meelahan markuu suuq soo maray bartaan aan calaamadan dhignay ahayd waa tana intii aan rabnay ayuu kor aaday. lacagtii aan markaas ku garaacno uga faa'iideysanayna waxaa kamid ah USD sidaad ujeediinba USD waa kana markuu halkan ayadana maray ahayd waliba ayada waxaan idin sheegay in halkan kaligeed la isku halin karin oo la soo jibiyay sababtoo ka weyn lama jibinin waxa kan kaligii socda ayaa u baahan taxliilin gooriya oo markaad 5 minutes ka tagtid oo kale waa inuu soo uu ku ahaada hubanti gaar ah waxaad hubisid. sidii ayaana dhacday waa daacada xeerka wareejiyo halka waxa ujeedaa trendiga yarka saas korkan ugu soo socday asagii ayaa la soo dhameeyay oo la jibiyay hoostiisii korkiisii waa kana hoostiisii korkiisina waa kana markii halkan la jibiyay trade-ka uu saan soo dhaca halkan maana gelin markuu bartaan ku noqday ayaan galnay meesha intriga inoo ahayd halkan ay ahayd. marka USD hay saasaan uga faa'iideysanay hadduu alla ku idmaayo maxaa la yiraahdaa waxaan ujeedaa inaan maxaa la yiraahdaa bibis badan ay bixisay oo waliba aad iyo aad maxaa la yiraahdaa muhiim u ah. waxaan ujeedaa inay bibis badan bixisay oo 150 iyo 2 biba maxaa la yiraahdaa trade intiisa badan marka saan oo kale dhacdo targetka aad arkan yahay intiisa badan waa la xirtaa sababtoo wax u dhiman meesha markii diiwaan ma jirto inta ka badan waxa sugtaa waa in inta halka lagu sii jibiyo trend kala sii raaca. trendigaas marka ma ogid waxaad waa falanqayn suuq wax walba ka macquul ah maadaama inta saa ka heshay lacag inta badan waa iska xiraa
percentage ugu badan boqolkiiba 85 15 kale waa la iska sii daaya hadduu soo noqdana wax weyn kale ma noqon haddii uu sii socdana dee saa rabtay bay ku noqonaysaa trade sida loo haysto ku baranaysaa iyo dhiirigelin bay ku noqonaysaa sidoo kale trade kana soo dirin waxay JBBUSD laakiin JBBUSD ila daayada dhacday waxay ahayd meeshii hore ma iska dhameystirinin meeshaan ay iska dhameystirtay anigu xitaa trade kan ma gelin sababtan u gelin waxay ahayd halkan markuu trade kan uu soo jibiyay meeshii aan rabay ugu yaraan in lagu noqdo last week candle-ka afkiisa ahayd candle-ka afkiisa markii lagu noqdo ayaan falanqeynaa aysan ahayn waa inuu supply-gaana uu ahaaday ahayd laakiin ma dhicinin waxaa dhacday marka halkan uu imaaday meeshaan ayuu ka noqday oo candle kale oo supply-gan camal ah ku jiray meesha opposite zone-kii jibiyay wax walba laakiin isagu waa ka riski badnaa sababta oo biibskiisana zaaid bay u banaayeen oo stop loss-ka laguma dhiiran gelin lama geli karin markii runta aan isku sheegno ana been aan ku darno xayisiina aan dhanin waa galnay laakiin asagana waxa waay halkaan ayuu laakiin iska dhameystiray laakiin dhameystir ma ahayn waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa ahayd isha kalsooni badan wadata dhameystirka waxay ahayd suuqa la tacaamul ah qofka cayri laakiin waa goonidiisa wax waa ka sameyn karay sidoo kale trade kala galay oo asagana waxa la yiraahdaa faa'iidadiisa inuu dhameystir wuxuu ahaa JBBUSD JPY sidoo kale USD JPY markaas soo diray ayadana bartaan ayay mareysay waxaan halkaan markii la imaado hore ma ka galeyno waa in zone-kan ka horeeya la jibiyaa zone-kan markii la jibiyo oo lagu soo noqdo last week gaadaan last candle-kaadaan oo socda last week ma sorry last candle-kan lagu soo noqdo ayaa entry inoo ah sidii ayaa dhacday halkii baa la yimid waxaa ujeedaa in la jibiyey waxaa la yiraahdaa opposite zone-keeni oo kan ahaa suuq kasoo mitigation-ka okay mitigation baan kugu sheegay mitigation-ka waxaan ku yiri awal saan kugu soo sheegay video waa halkaan meesha kasoo bilaabato inta dibad mitigation-kan marka waa in la jibiyaa sidii baana dhacday waa la jibiyey kadibna waa lagu soo noqon kadibna kor ayuu u kacay isaga 131 biib ayuu ah in afkan laga dulmaray ayaan rabnay oo 1 hour kan guud ah sidii ayaana dhacday waa laga dulmaray isagana waxaa la yiraahdaa 131 biib laakiin waxa ujeedaa inuu kasii dulmaro uu tagay maxaa la yiraahdaa ilaa haduu ku idmaayo 230 biib camal uu tagay 31 biib laakiin halkan 120kaas ayaan uga haray anigu sababtoo meesha marka diliya waxaa ku yiri trade inaad saas u seeysatay ma ahan waa inaad trend kale lagu dhisaa raadinaysaa waa inaad marka sidaas uga dhamaatid marka hadda waxaan sugnaa waa in again meelahan fursad kale ay ka dhacdo korkaan iyo hoostaan ayaan wax ka raadinaynaa intii halka kale liquidity sida camal loo jibiyo kale marka loo jibiyo ayaan fursadeena kale ka bislaysanayna trade kale oo idin soo diro waa GBPCHF sidii aan rabnay ma inoo noqonin iyada listigeena waa maxaa la yiraahdaa sidii aan wax u saadaalinayno iska bedeshay muhiimna ma ahan inaad trade walba oo saadaaliso oo sidii la rabay aan u noqdo marka isaga waxay uga duwan tahay waxay tahay meeshaan aan rabay in la imaado meeshaan waa naloo yimid way noo dhacday sidii aan rabnay laakiin waxaan rabnay in kan la jibiyo soo ma jeedid korkaan laakiin ma dhicinino korkii ma la jibinina maxaa dhacay waxaa ujeedaa ilaahay hadduu ku idmaayo trendiga halkaan kasoo socday oo saan ahaa oo halkaan inoo yimid ma istaaginin meeshiisii oo kan looma jibinin laakiin waxaa dhacday marka halkaan yimid inuu uli sii socday you see saa markay dhacday hoostaadii waa la jibiyey hoostii kale ayaa qarka loo saaran yahay lama rabo kii hore inaad qaacidadii hore ku dheganaatid wogna waxaan waa 1 hour waxaan waa 15 minutes intana waxa ka socda waa 15 kale 15 ka marka saakan ula macaamilaysa marka hore ula macaamil iska ignore garee marka waxa halkaan markaan ka jira hadda maxaa ka macquul ah hadda waxa ka macquul ah in meeshaan inoo ahaan karto waxa la yiraahdo supply waa ay ahaato isheeg supply zone meeshaan markii hadda la tago afka waa loo dhow yahay aan liquidity top ah ka raadino aan ula sii daadegno 30 daqiiqo iyo waxa la yiraahdaa maadaama trendi hoose uu yahay aan ula sii daadegno jihada hoose oo halka liquidity aan si fiican u xaqiijino kadibna hadii la jibiyo meeshaan la tago 5 minutes hay'adan hoos ayaan u sii raacinaa one more time ilaa inta laga sii tagayo hoostan ugu hooseysa marka halkaan waxaan ka raadinaa waa one more time oo hoostaasna loo sii aada sorry one more time hoostan inoo la imaada
marka iyadoo waa sidaas waxaa la yiraahdaa GBP EGCHF trade kale Allah musta'an aan soo dirnay oo ahaa cat GPY I think cat GPY waa laakiin hayadana sidii CHF GPY oo kale GBP CHF oo kale ayaa rajabeel ka muuqata oo wali horta ma rajabeel laakiin rajabeel waxaa la yiraahdaa inuu isheeg trade-kaada uu nuxurka kasii dhamaanay mar haddaa aragtay trade-ka meeshaada ugu hooseysa aad ka filaysa inta imaal afka saan ula baxbax trade-kaas waxay ka dhigantaa waa meeshan niijo badan baa ka jira oo waxaad ujeedaa fiiqaan kusii socdaa weli fiiq baa dhiman laakiin marba haddii halkaan la imaaday nuxur badan ma yeelanayo sidaan ayuu ahaanaya hoostaan ayaa loo sii degaya waana la jebinaya meeshan laakiin haddii ay rabto sidaa aan rabnay inoo dhacdo waa in kan la jebiyaa soo muujeedi korkaan la jebiyaa laguna soo noqdaa maxaa la yiraahdaa again markaas kadib ayaan fursadda kor qalqaalsan karnaa halkaa deertan trade-kan waa trade iska riskiya wixii lagu dhaawaa korba uu sii socda oo ofishiyaala korna ma ahan laakiin inuu saadaashu waxay tahay inuu hoosta hadda jebin doono u badantay hadda marka haddii aan maxaa la maanta waa khamiis trade-yadaas horaan soo galnay oo aduu 300 bib ku dhawaad aan ka qabanay ilaa hadduu ku idmaay marka haddana trade-yada macquulka saasoo tahay scalping kale ayaa jiray aan asxaabteyda qaar aan isla sameynay oo 30 bib 40 bib 50 bib ilaa 60 bib aan sameynay iyagoo kuwaan gaarkooda heeyihiin marka haddaan ku dhaho yani xag baa sameynaysa maanta dhan ma aaminaysid laakiin waxaa muhiimadda si aad isku aamintid waa inaad dadaal samaysaa marka horta dadaashid aa wax samaysid ayaad nafsiyan is aaminaysaa markaas ayayna wax walba kuu kala cadaanay maxaa reality ahayn qofna meeshaan qarashka ama qaadin waqtina qofna kuma dhaca waqtigaas subscription ka dhacaya baro muhiimadaaduna waxaa waaye inaad markaad waqti u hesho aad waxaan barato aad waqti gelisid si asxaabnimaana waa isku caawinaynaa maxaa la yiraahdaa markaasna aad kala aragtid marka hadda EURGB waa kale trade hadda dhow shaqo hayo waxaa la yiraahdaa waa trade hadda macquula sidaan hadda uu yimid meesha sidii aan ka rabnay halkaan ayaan rabnay hadda already trade-kan waa trade active inoo ah hadda trade-kan oo kale waa gali kartiin active ayuu hadda inoo yahay maadaama uu maxaa la yiraahdaa kii uu imaaday meeshii aan rabnay zoonkii afkiisa uu imaaday TB-ga stop loss-kaada waa halkaan ayaa ku qiimeysan yahay target-kaadana waa in high-gan kale laga dulmaraa laakiin high-gaas keliya iska dhiglaanino ha ku doqomoomi meeshii oo waxaad inta lagu siisiiyo aan lagaala noqonin halkaan TB-ga koowaad ha ku ahaado kan labaad ha ku ahaado gidaarkan kale kan saddexaadna ha ku ahaado gidaarkan halkan ugu dambeeyana targetkana meeshaan ha ku ahaado waa isfahana sooma already trade-kan sidaas ayuu active ku yahay maadaama maxaa uu dhacay uu active sidaan ugu noqday wax kale ma ahan active uu sidaan ugu noqday waxaa ujeedeen halkaan markii la yimid zoonkii kasoo horreeyay oo la jebiyey wuxuu ahaa waa kana kan ayuu ahaa oo laga soo kacay maxaa la yiraahdaa mitigationka kii markuu yimid halkaan asagiina waa sii sugnay waxa ujeedaa in asagiina mar kale again la jebiyay halkaan damo aragtay halkaan in la jebiyeyna oo meeshaan oppositionka waa lagu soo noqday isla haddii meeshaan hadda trade-kan waxa ujeedaa inuu active yahay wixii aad markaan uga baqdaa asagana waa goonidiisa haddii intaan videoga iyo waxaan edit gareynaya waa siraado uu cararayaa waxaan sameynayaa screen ayaan ka qaadin waxaan leeyahay telegramka ayaan kugu soo dirin si dadka telegramka halkaas ay hadda active ugu noqdaan EURGB sooma EURGB EURGB active trade ayaan kugu qorin Allah musta'an awjeedin hadda waa idin soo dhigay sababtoo ah video intaan dhow soo gelinayo u daahi karaa si kimiya saacado soo marka inuu trade-ka tagaa laga yaaba marka dhow halkaas kala soco halkaas hadda kusoo diray already waa mahadsantihiin trade kale oo isagan isha hadda saacadahan aan ku hayo waxaa CHF GBY
CHF JPY isaguna waa sidii uu sila qisayay laakiin asaga weli xoogaa yar baa dhiman meeqa bib how many bibs waa 13 bib baa ka dhiman asaga inuu yimaado 13 kaas bib kadib waa asagana active buu inoo ahaan doonaa oo bartaan ayaa ah meesha laga geli doono insha Allah inta video soo wada waa arki doontiin dadkiina ay is xiriiraan video asagana bibs fiican ayaa ku jira 100 bib inaad 100 bib iyo waxa aad sameyn kartid ka badan dadka qaar 100 bib markay ay arkaan foorkada waqtiga hore 100 bib list jiray macnaheedu diisiin bay isleeyihiin waqti marka hay'adana waa qofka cilmiga barta ma aha qof walba marka iyadana waa mid aad sameyn kartiin sheekada kala saaxiibiyaan aan rabin aan ka dabageeyo waxa la yiraahdo newska bari jira NFB ga bari maanta waa 9 taariikhda bari waa 10 sano marka firaan ayaa waatan taankanige waa NFB ga oo maxaa Mareykan ka soo baxay USA iyo kan employment change waa isku hal laakiin Mareykan baa wax lagu yaqaanaa NFB ma fahanteen marka walaakiin waa same oo xogta shaqada iyo shaqaalaha toon saaxiibar ayuu soo baxaya news kan oo kale sidaad uga faa'iideysan kartiin ayaa wax yar inaan ka dabageeyo maxaa sameyn kartaa trade news markuu uu saacadii mareyso toon saaxiibar soo baxay Soomaaliya 10 saac 27 markii la gaaro kale ayaad waxa sameynaysaa suuq markuu hadda USD kaada kale waa labada lacag ka soo baxay kaadna ka soo baxay USD oo kale ka soo baxay lacagaha ugu jecel oo kale waa si degdeg ah maxaa la yiraahdaa 40 iyo 50 bib iyo 60 bib uga qaban kartaa maxaa sameynaysaa taasoo halkaan kale markuu marayo korkiisa xariiq baa dhiganaysaa waa faanta Soomaaliya laakiin waa inaad dhowr bibs ka dul martaa 12 bibs ilaa 12 bibs hoostiisana xariiq kale ayaa dhiganaysaa asagana waa inaad sidii oo kale 12 bib ilaa 12 bib iyo camal ka hoos martaa sababta u dhiganayso waxa waana 3 daqiiqo 2 daqiiqo u dambaysa trade-ka farafudeed baan la rabaa meeshan lama rabo isjijiid iyo waxaas kan marka halkan buy waad leedahay calaamada buy-ga soo dhiganaysaa musta'an 40 bib ka dhig kan stop loss marka waxa ka dhigaysaa waxa la yiraahdo bartaan hadda uu marayo amal oo 20 bibs backs ka dhigo 20 bibs ka dhig 20 bibs ka dhig Soomaa hay'ado seelahana marka soo qoys hortigan internet aydan dhigo stop loss marka aydan waxa ka dhigtaa waxa la yiraahdo meesha hadda suuq maraa agtiidan ku dhawey meeshan ku dhawey TP gana waxa ka dhigtaa kan suuqan u jeedna hadeertaan oo laasta oo meeshan waxa la yiraahdaa ki aha marka isagana gidaarkan waa ka dhig 40 and then inta marka MT4 kaada tagaysaa waxaad leedahay kan koobaad waxa ku xiranaysaa buy stop oo suuqan waxaad leedahay mar hadii halkan la gaaro 10kaas iyo koodaas uu dhaqaaqo waa hubanti inuu korkaas iska sii aadayo oo newsku zaid hal mar bug u dhahayo marka halkan baadii la gaaro automatic trade-ka uu furbalay buy stop baa ku xiranaysaa waa isla faana Soomaa stop loss kan waa gelinaysaa TP gan waa gelinaysaa position ku baneeyo stop loss kan calaamadan meesha taalo oo buluugtaan ah ayaad gelinaysaa kadib trade-ka hadii halkan la soo aado oo madax saas birtaan laga baxo already uu ku furin korkaas ayuu ku soconayo waan sidii rabay bilcagsigeeda waxaad leedahay halkan trade-ka haduu u imaado oo meeshan uu suuqan saas uu soo qarxabo meeshan soo dhaafo automatic uu furo oo sell stop uu furo sababtan waxa waa hadda sell stop in aad trade-ka dhugto koobaad uu qarxa ayaan furahay waxa laga yaabaa in zaid hal mar uu kacay lacagta halkaas tagto already intii laga rabana waa dhacday already laakiin baashan waxa ka saacaysa marka halkan la tago automatic markuu hal mar saas kugu furo dhagta koobaadba yani waa automatic hoostaas ay hal mar TP gaadi waa qaadataa sidoo kale markuu halkan tago madax uu kala baxo isagana waa sidii la rabo hal mar ayuu madaxa kala bixin oo TP gaadi ku dhici kara marka isagana trade-kaasna oo degdega sidaas ayaa looga faa'iideysan karaa midida kale wixii markay halkan ay soo baxaan oo sidii la saadaalinayay baas ka sii daawanaysa intaas maxaa ku waalinahay trade-kaada ku xiran waana risk gareyso 20 bib ilaa 20 bib baad risk gareys hadii kan uu ku furo labadooda marka waxa u dhigaa mid waa inuu ku furo la sababta soo kor buu aadin ama hoos ma ogid marka newska waxaan meeshan ku qoran bilcagsigeeda ku soo bixi kara anything ba ku soo bixi kara iyadoo qiimateed waa saadaal wax walba adduunka marka hadii uu kor isbedelno kor uu noqoto lacagta sidii loo saadaaliyay
korkaan dee waa kala qabsatay haddii ay hoos noqotana hoostan waa kala qabsatay oo taleedkaadina uu isxel. laakiin qalqal waxaa kugu yaalaa marka intaad 20 pip riski aad dhigtay ugu talagashay aad stop loss ka dheeraysid oo wax ka bedeshid markaas ayaad feeraha ka jabi doontaa. waan meesha ugu khasaaro badan laakiin sug ilaa uu trade ku dhamaado waxba iswaan 20 pip riski galeysay 40 baan u socotaa marka waxba ha isdhibin ha ku confuse gareys ma taas pip already inay khasaarto oo ugu talagal waxba ha ka bedelin adiimada oo khasaartay hadii kalena 40 pip degdeg aad cayirnaysaa aad suuqa uga sii jimcaysan lahayd. marka ayadana qaybtan intaas ayaan rabaa in la share gareeyo waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan saaxiibayaal. waxaan idinka codsan lahaa mar un haddaad halkaas u gaartood muuqaalkan wax ka faa'iiday inaad subscribe dhahdo barteena YouTube si aad uga socotiin information fara badan oo warbixin iyo saameyn ku yeesho wax kugu soo kordhiya wuxuu rabaa ahaado. meeshaan si free ayaan dhalinyarada rabnaa inaan isku caawino. sidoo kale waa kusoo biiri kartaa barteena maxaa la yiraahdaa Telegram Somali Online Opportunities. waa mahadsantiin dhammaantiin insha Allah intaan muuqaalkeena xiguu kulmi doono. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.